nin nasiib badan oo dalka koonfur kuuriya u dhashay oo dhulka xaaqa ayaa dahab meel cidla ah ka helay alla iga nasiib badnaayaa ninkaasi yaan idinka diline xasan cali geeloo soo akhriyaa ila fadhiya xasan bal sheekada nooga dhac catosh qofkan reer koonfurta kuuriya u dhashay nadaafadda ayuu ka shaqaynayay garoonka caalamiga ee Incheon International Airport waxayna dhacday 26 bishii April ee naga dhamaatay waxa uu helay 6 jab oo dahab ah ay raahday 7 xabo qiimahan markii lacagtooda la qiyaaso waxay isku noqonayaan 330,000 oo dollar ay noqonayaan qiimada marka isku dardar marka waraaq cad ayuu ku duubnaa dahabkan wuu soo helay booliska ayuu u geeyay mid kastana jab kasta wuxuu lagu qiyaasay inuu dahabigu og yahay marka boolisku waxay leeyihiin ninkani wuxuu ka shakiyay waxa loo malaynayaa qofkii lahaa oo hore dahabkan watay inuu cabsaday markuu eelaboorka soo galay uu yiri ama laga qaata marka qashin qofka ayuu ku tuuray laakiin nin kale ilaahay ka arsaaqay oo meeshuu ka qaatay booliska lagu wareejiyay sharciga wadankaas yaal wuxuu yahay 6 bilood haddii alaab la soo helay oo qof sheegta la waay qofkii keenay in la siiyo ha la siiyo dhibaatada jirto waxay tahay waxa la leeyahay 5 ilaa 20% waa lacag u dhiganta 65,000 oo dollar oo kaliya in laga siinayo qiimaha lacagta kale dawladda ay la wareegayso marka oo muxuu markii hore u geynaya hadii dawladda la wareegay kulli sharciga wadankaas sida xoolo adiga naftada ma tugnimo lagu qabtaa maadaama qofkii watay buu iska tuuray oo uu cabsaday marka dad badan hadda waxaan u malaynayaa inay xasan aan kula kaftame adigu maxaad sameyn leedahay dad qofka ahaan lahayd sharciga iyo wadanka la joogo marka laga fiiriyo iyo qofka hamigiisa iyo rabitaankiisa dahab ninka tagaya ma laha wallahi ani kama tageen waliba meeshaan geyn lahaa hadhow marka idaacada ka baxnaan ku sheegi waa hagaag haatan